Tababaraha Liverpool Arne Slot oo si adag loo dhaleeceeyay kadib markii Liverpool si lama filaan ah uga hartay FA Cup-ka. Arne Slot ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay inuusan dooran kayd xoogan kulankii Liverpool ay la ciyaartay Plymouth, taasoo keentay in kooxda heerka hoose ay hesho mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee taariikhda tartanka. Tani waxay noqotay lama filaankii ugu weynaa ee FA Cup-ka xilli ciyaareedkan, iyadoo hogaamiyaasha Premier League ay ka hareen tartanka kadib markii ay guuldaro kala kulmeen kooxda ugu hooseysa ee Championship-ka. Go'aanka ciyaarta waxa uu yimid markii Ryan Hardie uu rigoore u dhaliyay Plymouth Axaddii, taasoo Liverpool ka reebtay riyadoodii ahayd inay ku guuleystaan afarley taariikhi ah. Slot ayaa sameeyay 10 bedel marka loo eego kooxdii garaacay Tottenham dhowr maalmood ka hor si ay u gaaraan finaalka Carabao Cup-ka, iyadoo kaliya goolaha Kelleher uu ka haray safka hore. Si kastaba ha ahaatee, kooxda garoonka ku soo bilaabatay waxaa weli ku jiray ciyaartoy tayo sare leh sida Luis Diaz iyo Diogo Jota, balse Darwin Núñez ayaa ahaa magaca kaliya ee la aqoonsan karo ee kaydka ku jiray. Xidigaha sida Mohamed Salah, Virgil van Dijk iyo Dominic Szoboszlai ayaan kasoo muuqan kulanka, maadaama fasax dheer la siiyay ka hor kulanka Marseille Derby ee Goodison Park oo dhici doona maalinka Arbacada. Natiijadaas darteed, markii Liverpool ay u baahneyd xidig kaydka ka yimaada si uu ciyaarta u bedelo, ma jirin mid la heli karo, taasoo keentay inay la kulmaan guuldaradii afraad ee xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada oo idil.